موضوعنا ما أنت وحوي عدو إنسانك أفر عدو أي ليه والنف وهو وشيطان والدنيا أفرت الشيء وحي عدو كيهين إنسانك ما أنت وحي اسكحسوسين إن حالة واستعماله شيطانك أود منها لكن لما الشيء أي استعماله الوسوسة والتزين inuu dhagta wax kaaga sheego wuxuu ku sheegay uu ku qurxiyo ayuu isticmaalaa awood kale samale laakiin dhagar ayuu yaqaan bal dhagarta uu insaanku uu ku dhakro uu dariiqa ilaahay ee toosan uu kaga leexiyo bal aan wax yar aynu isdhageysano insaanka laba ayuu kala baxaa caabid iyo caalim nin caabid ah ayaa shaydaan u yimid wuxuu yiri nin yahow cudur aan aqaano ayaa daawadiisa aad taqaan buu yiri ma wada shaqaysano oo dadka cudurkaas haya aan ku soo aadiyo adna aad ka daawaysid warniyahow anigu cudur daawadiis ma aqaan ma soo faataxada ma taqaan ha anna waxaan aqaan dadka khalalka ku dhaca ama saraca ku dhaca ayaan aqaan maaragtay waan ku soo aadinaya adna faataxada ku akhrinaysa sidaas aan u wada shaqaysano saracan waxa weeye waa shaydaan asaga ayaa insaanku markuu dhufto insaankii uu qalalaya qalal ayuu sameynaya marka dadkii ka agdhawaa ayuu wuxuu leeyahay war qofkan xanuunka hayo nin daawadiisa haya ayaan aqaan waa caabidka meesha degan orda u geeyay halkii markii la keenay ilaa asagoon baa dhuftay markuu a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim markuu yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin faatixada ilaa aakhirkeeda uu akhriyo uu ka baxaya ilaa waa wax markiiba la isla ogaaway qofkii waa fiicnaanaya sidii ayuu dariiqiisa ku maraya qof kale soo dhufanaya kadalika wuxuu leeyahay wal u geeya caabidka asaga ayaa maaragtay xanuunka qofkan haya yaqaana daawadiisa markii loo keeno faataxada uu ku akhriyaba uu ka baxaya hadana mid kale uu dhufanaya kadalika ilaa sida uu caabidkii uu maaragtay mashhuur ku noqdo oo magac ku yeesho oo la barto markii la bartay ayaa maantaba wuxuu uu maaragtay damcay shaydaan ninkan siduu wadada uga leexin lahaa falankeeda inuu galo gabar quruxsan ayaa oo dariiqa socota walaalaheed la socdaan ayuu dhuftay qalalkii baa qabtay walaalaheedii buu markii wuxuu yiri ugeeya needan maqlin ninka caabidka ah in arinkan oo kale inuu maaragtay daaweynteeda inuu yaqaano marka sidii waa la soo kaxeeyay caabidkii baa loo keenay markuu faataxadii ku akhriyay waa ka baxay way soo wateen gabadhii aqalkii markay u sii wadaan oo aqalkii loo dhow yahay ayuu haddana dhuftay shaydaan haddana waa la soo celiyay wadaadkii baa loo soo celiyay haddana waa aqalkii baa loola soo noqday haddana wuu dhuftay haddana wadaadkii baa loo soo celiyay adugu intay wadada sidaa ugu jireen yaa shaydaan ra'yi u soo jeeday wuxuu yiri war waad dhibtooteene oo daasheene gabadhan tenda ha looga dhiso caabidka agtii meesha waxa uga dhisa oo dejiya halkii baa gabadhii la dejiyey haddii la dejiyey meeshii gabadhii keligeed ay ku noqotay wadaadkii caabidkii shaydaankii baa dalaq yiri marka hadduu dalaq yiri inuu gabadhii ku turunturoodo oo halkaa kaga zinaysto halkaa ay uur ku bixiso ayuu gaarsiiyey markuu heerkaa gaarsiiyey ayaa la taliyana wuu ahaa markaas caabidkii waa walwalay oo wuxuu yiri warniyo hadee waxaan wanaagsaneyn baa la sameeyey maxaa tala ah wuxuu yiri inaad iska asturto ma doonaysaa habeen madow intaad disho xaba oo maaragtay god u qode iska dub sidii buu yeelay idan marka laba gaf buu geliyey zinuu geliyey iyo qatl bal fiiriya waa baxay shaydaan wuxuu u tagay walaalaheedii u tagay gabadhaad caabidka aad ku amaanaysateen ee agtiisa aad dejiseen arrinkaabuu ku sameeyey haddana intuu dilay oo halkaabuu ku aasay soo kaca in qabrigeeda intuse intuu soo kaxeeyo qabrigii ayuu maaragtay dul keenay caabidkii meeshii baa lagu qabtay oo maaragtay
lagu xukumay in la dilo oo tiirkii dilkii baa lagu xiray haddii la xiray shaydaankii baa u yimid markaasuu yidhi haye waday haddee waa kan waa arrinkii baan u xirnahay in la maaragtay qisaaso ayaan maaragtay maanta meeshan la igu soo xiray wuxuu yidhi xariggan anuun baa kaa furi kara buu yidhi dee maad yeeshid oo iga furtid markaasuu yidhi maya bishard shardi baad yaa shardigaa haddaad samayso xariggan waan kaa furahaya markaasuu yidhi ushrid say ma anta cays haddaadba maanta noloshan aada ii badbaadinayso sidaa doonto maaragtay yaa ii shardi wuxuu yidhi inaad ii sujuudaan doonahaya inaad ii sujuudid ayaan doonahayaa buu yidhi wuxuu yidhi dee sujuudi waa maaragtay ilaahay keyrkii miyaa loo sujuudahay hadda adna halagu daldalo yidhi markaa haddaad sujuudi diiday idan marka waa yahay buu yidhi bal xarigga iga furo bal aan kuu sujuuday maya buu yidhi adigoo xarigaaga meeshaada ku xiran yaa un madaxa un yaa ii lalmi oo madaxa un rid buu yidhi madaxa un rid idan sidii buu yeelay qoladii markaa daldali lahayd walaalihiina la socdaan ayaa xaggaa ka soo baxay shaydaankii markuu qoladii arkay wuxuu yidhi anigu kaama furi karo waa lay arkahayaa hadee qoladii waa ka hadee asagana marka xukunkii baa lagu fulinahayaa soo maha hadee maxaa lagu fuliyey asagoo ilaahiisi ku kufriyey ayaa lagu fuliyey oo halkaa wadadii ilaahay kaga leexday oo cadaabka ilaahay yaa uu u leexday idan dhagartaa ayuu shaydaanka u adeegsanahayaa iska ilaaliya naf iyo hawo iyo shaydaan iyo adduunyo cadow bay kugu yihiin ilaahay muxuuna leeyahay subxaanahu watacaala yaa bani aadama laa tacbudu shayطaan ina shayطaana kaana caduwan mubiin shaydaan ha caabudina awlaad aadamow shaydaan col cad ayuu idin yahay idan maantana cadowgaa maaragtay ayaa laga tala qaadanayaa laga amar qaadanayaa ayaa maaragtay qaar oo awlaad aadam oo dhahaya shaydaan baan caabudaynaa ayaad arkaysaa inta uu qasahayo laba hayo maanta waxa weeye laa tacud walaa tuxsaa wax la koobi karoo la tirin karo ma aha idan waxa weeye intuu dhooqada ku geliyo ayuu berri wuxuu ku oranahayaa anigu ilaahayga caalamkan abuurtay rabbiga caalamka abuurtay ayaan ka baqahayaa buu leeyahay bal isagoo markaa isaga kugu hubsaday cadaabkii ilaahay subxaanahu watacaala waciyaadu billah